wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kaasi oo looga gol lahaa in hay'adaha kala duwan ee dawliga la fahansiiyo waxyaabaha uu dastuurka farayo awoodaha ay leeyihiin iyo waliba sida ay mudan tahay in ay u shaqeeyaan waxaana kulankan oo ay qayb ka ahaayeen saraakiil aan Soomaali ahayn ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ujeedada kulan hawleedkan waxa warbaahinta u sharaxaya wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed طبعا موضوع بريهم بين halkan u fadhinay wasaaradaha kala duwan aynu ula kulmaynay wuxuu ahaa in hay'adaha dawladda wasaaradaha iyo agenciyada tala la bido oo la weydiiyo maadaama iyagu ay yihiin farsamo yaqaanadii ama howlwadeenadii ama mas'uuliyiintii gacanta ku hayay aagaga shaqo ay mas'uulka ka yihiin in tala laga weydiiyo nuxurka iyo qodobada khuseeya ee dastuurka ku jira walaalayaal waxaad ogsoontihiin weygii tagay inaynu la fadhiisanay wasaarada kala duwan wasaaradda caafimaadka biyaha xanaanada xoolaha kalluumaysiga isgaarsiinta wasaaradahaas oo dhammaantood iyo qaar kaloo badan oo soo gudbiyay fahamka iyo fikirka ay ka qabaan sida awoodaha loogu kala qaybanayo labada heer ee dawladdu ay ka kooban tahay heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo sida ay hawsha wadaagayaan maanta wasaaradahana waxaan u kala qaybinay thematic areas amaaga kala duwan wixii wax soo saar kalluumaysiga biyaha xanaanada xoolaha iyo beeraha waan israacinay caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeega bulshadana waan israacinay maantana halkan waxaynu u fadhinaa inaynu xayndaabka guud ee sharciga ilaalinta sharciga hay'adaha ama wasaaradaha harsanay inaynu la tashanno ilaalinta sharciga iyo hirgelinta waxa weeye wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga oo laba mawduuc oo waaweyn oo udub dhexaad u ah hanaanka federaaleynta dalka iyo dib u eegista dastuurkaba ka soo shaqeeyay mid waxa weeye federal policing model oo maanta aanu rabno halkan inaanu ku qaadaa dhigno dalka Soomaaliya wuxuu lahaan jiray police unitary ah oo qaybta guud laga maamulo deegaanada dalka oo dhan qayb loo arko hadda maadaama aynu federal noqonay modelka aynu qaadanayna federaalka ee 2016 maamul goboleedyada iyo ay isku afgarteen iyo dawladda federaalku sidii loo dhaqan gelin lahaa iyo aragtidoodanu ka dhageysanaynaa waxaa taa barbar socon doonta hanaanka cadaaladda ee federaalka ah oo isna jawhar ay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku kusoo wada heshiiyeen golaha wasiiradana la marsiiyey marka arrintaas aynu maanta halka u fadhinaa waa ugu mahad celinaynaa wasaaraduhu sida ay isu xilqaameen ee ay noogala qayb qaateen arrinkan muhiimka ee masiiriga dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa codsaday in si wanaagsan looga hadlo oo loo falanqeeyo nidaamka federaal ee Soomaaliya ay qaadatay iyo waajibaadka la kala mudan yahay sida wasiirku hadda soo qadimay dalkani markii uu federaalka qaatay ilaa iyo hadda waxaa lagu jiraa hanaan ah federaalkee mas-uuliyadeed xaggee ka fulaysa guud ahaan dalku hadday tahay dowlad federaal iyo dowlad goboleed mas-uuliyadahood hadday tahay amni hadday tahay cadaalad hadday tahay dhaqaale wax walba waa inay ku fadhiyaan mas-uuliyad la yaqaano meesha ay tahay arrimahaas waxaa lagu saleeyaa wasiirka hadda idinla hadlay wasiir Saalax iyo inta kaleba lagu shaqeynayaa mas-uuliyaduhu meesha ay ugu fiican oo ay ka fuli karaan in la dhigo ama ha ahaato hadda wasaaradaha uu tiriyo wasiirku oo hore loo arkay ama ha ahaato inta dhiman
oo fahamku yahay maanta halkaan in cadaaladii iyo ay maanta halkaan u joogaan inay iyaguna presentationkooda sameeyaan. guud ahaan arrinka dhani wuxuu ku urursan yahay in nidaamkii federaalka ahaa la calaameeyo mabaadi'da ugu waaweyn sida loo wadaagayo, kadibna laga hadlo mabaadi'daasi sida ay u kala qaybsamayaan. tusaale yar haddaan qaato, مثلا waxaan hadda wasiirka hadalkiisa ku jiray waxbarashadii caafimaadkii iyo inay mareen soo saas maaha. waxbarashada waddanka oo hoos imaan doonta nidaamkaas federaalka, waxaan ka rabnaa waxbarashada, waxaan u qaadanayaa tusaale keliya, waxaan ka rabnaa in ardayga Soomaaliyeed markuu da'da ama 3 sano ama 4 sano xanaano ku galo ilaa uu jaamacad ka qalin jabiyo, uu rabo waxbarashooyin kale inuu sii wato, la rabo in horumar laga sameeyo cilmi baaristii dalkaani u baahnaa, technology-gii wax walba, siyaasad ay ku shaqeyso iyo fulin siyaasaddaas. wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bilahanba waday kulan howleedyo lagu barayo qaar ka mid ah hay'adaha dawladda sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadka dastuuriga ee dul saaran, iyaga oo markaasi fulinaya waxyaabaha ku qoran dastuurka. Cabdishakuur Shaasha, SBS, Muqdisho.